cilmi ahaan waxaa cad in xadiidda laga soo dejiyey samada qaab sida danabka oo kale ah birtu waxay uga jirtaa lakibada dhulka bartamaha ama santarka sidoo kaleeto waxaa la yaab leh in suuradda xadiid ay tahay suuradda 57 oo ah suuradda dhextaal ku ah qur-aanka kariimka sidaan wada ognahay qur-aanka kariimka waa 114 suuradood marka haddaan kala qaybino waxaa soo baxaya min 57 suuradood sidaasi daraadeed suuradda xadiid waa suuradda kala barta suuradaha qur-aanka kariimka sidoo kaleeto macdanta xadiid waxay kala bartaa macdanada kiimikada sidoo kaleeto miisaanka culeys atomka xadiid isku celcelin waa 57 halka suuradda xadiid ay tahay suuradda 57 ee qur-aanka tirada elektroonada borotonada atomka xadiid atomic number of iron loo yaqaano waa 26 halka aayada ku soo aroortay suuradda xadiid ay ka hadlaysa xadiidu tahay marka lagu daro bisinka aayada 26aad كلمة حديد waxay ka kooban tahay 6 xaraf halka aayadaha xadiid lagu sheegay ay yihiin 6 aayadood لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سبسكرايب ده janalka Rijaalul Janna si aad noogu garab istaagto nooguna dhiirigeliso inaan soo bandhigno qisooyin kale oo xiiso leh aan sii wadno qisadeena.